السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان أصحابتا باركا 252 meel kasta aad joogtaan dur wanaagsan waxaad ku soo dhawaataan muuqaal cusub aan kaga hadli doono wararkii u dambeeyay kooxda kubadda cagta Barcelona. Hadda janaalka Barca 252 ku cusub tahay subscribe saaro si ay kuu soo gaaraan muuqaalada soo socda. Muuqaalkan share dhaha mahadsanidin. halkee ayuu marayaa wadaxaajoodka heshiis kordhinta ee Barcelona iyo Marc Andre Stegen? Waa wararkii u dambeeyay ka imaanaya dalka Spain ayaa warinaya in wadahadaladii u dhaxeeyay Barcelona iyo golayaha xulka Jarmalka iyo kooxda kubadda cagta Barcelona Marc Andre Stegen heshiis kordhinta ee marayaan meelo gabagaba ah. Barca ayaa ugu dambeyn ku kalsoon inay dhameystiri doonaan qarashaha heshiiska lagu kordhinayo shabaq ilaaliyaha Jarmalka. Labada dhinac ayaa rumaysan yahay inay isla meel dhigi doonaan heshiiska cusub, waxaana lagu soo waramayaa inta uusan dhammaan xilli ciyaareedkan si rasmi ah lagu dhawaaqo qandaraaska cusub. Ter Stegen ayaa hadda Barcelona kula jira qandaraas dhacay xagaaga 2022, waxaana wadahadalada heshiiska lagu kordhinayo ee bilowdeen bishii Febraayo. hakad ee gale intii ay kubadda cagta maqneed. Guulahayaan ayaa doonaya mushaaraad fara badan oo u qalma qayb qaadashada guulaha kooxda maadaama uu ka mid yahay xidigaha ugu muhiimsan safkooda, balse markuu arkay xaaladda dhaqaale ee Blaugrana wuxuu aqbalay dalabka heshiiska cusub ee u soo bandhigtay kooxdiisa Barca. Barcelona ayaa ku fikiraysa inay iska beeqaamiso miisaaniyadeeda mushaar bixinta xilli ay heshiisyo hordhac la gaareen Lautaro Martinez oo ka tirsan kooxda Inter Milan iyo Pjanic oo u ciyaaray kooxda Juventus. Ugu dambeyn, Marc Andre Stegen waxaa lagu tiriyaa inuu yahay goolahayaasha ugu fiican shanta horyaal La Liga, Premier League, Serie A, Bundesliga iyo Ligue A. Maxaa ay kula tahay taageer adi ahaan? Warbixintan maanta aan ku soo qaadanay share garay intaan muuqaalka xig isku arki doono. Sidaas iyo nabadgelyo.